بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، dadweynaha iyo maamulkaba dhammaantiin waa idin mahad celinaya. intaa kadib darsi ku saabsiisan qofka muslimka sugnaantiisa iyo toosnidiisa uu ilaahay kitaabkiisa ku toosnaado iyo diinta islaamiga ah ayaynu wax ka tilmaami doonaa. dhaqanka aadanaha ma aha in weecweecad laga waayo. aad bay ugu adagtay bini aadamku inuu qumanaado bes. waxay dhahdeen min caadati linsaan waxaa ka mid ah tadabdub, inuu isbedel uu ku dhaco. waa caadada bini aadamka fii kulli shayna weeyaan tadabdubkaasi. hadday shaqo tahay, hadday dareenka tahay iyo mashaacirtiisa, hadday tahay nashaadkiisa iyo activitigiisa. qofka bini aadamkii bay dhahaan joogtayntu sideeday ugu adagtay. sida awgeed mar waa nashiid, mar waa caajis, mar shaqo badan buu qabanayaa, mar waa wahsanayaa, mar dareenkiisa farxad baa ka muuqata iyo raynrayn. isbeddelkaasi markaa bini aadamka dareemadiisa asal buu ka yahay bay yidhaahdaan. inuu markaa sugnaado oo toosnaado, qumanaada, waxay culimmadu yidhahaan waa mujaahada. waa shay dadaal dheeraada u baahan. toosnidu iyo qumanaantu, istiqaamadu iyo habaadku, sugnaantu waa isku macno dhadhow yihin. midi waa inuu qofku mabda'a ku toosnaado, aanu ka weecweecan. inta badanna marka laga warramayo shahwaati nafsiga iyo wixii la halmaala ayaa la yidhahaa qofku waa inuu sugnaadaa, waa inuu toosnaadaa, qumanaadaa. mararka laga warramayo shadaa'idda iyo mashaakilku markuu qabsadana waxaa la tilmaamaa iyana waa qumanaantii una, laakiin sugnaan bay ku tilmaamaan. marka haddii la yidhaha waa habaat iyo haddii la yidhaha waa istiqaama, marna waa isku macna intooda badan. mararka qaarkoodna waa la odhan karaa bacdu awjuh alikhtilaaf baa ka jira. ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahay isagoo inooga warramaya dardaaranadii ambiyadii, ama isaguba ina farayo. nebi yacquub markuu dhashiisa la dardaarmayay wuxuu ku lahaa: yaa baniya ina allaha istafaa lakum addiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. carruurtaydiyay buu leeyay dhashiisii isagoo la hadlaya. ina allaha istafaa lakum addiin, ilaahay wuxuu idiin doortay diinka kan kuwii ku dhaqma ee rumeeya ina ahaataan. falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun, ha geeriyoonnina idinkoo muslima mooyaane. geerida lama garanayo goorta imanayso. macnaheedu waxa weeyaan qumanaada inta geeridu idinka imanayso. maadaama aan la garanaynin geeridu qofka goorta ku imanayso. yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allah, ilaahay in badan buu qur-aanka inugu leeyahy alla ka cabsada. oo la yidhi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun, ha geeriyoonnina idinkoo muslina mooyaane. wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin. nebi maxamed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala wakhti dhib aada u badan ee ay quraysh ka haysatay, ilaahay baa ku yidhi wacbud rabbak, rabbigaa caabud intaad geeridu kaaga imanayso, intaad yaqiinta ka arkayso. si awgeed waxaa matluub oo laynaga wada rabaa, ambiyada laga rabaa, dhasha ambiyada laga rabaa, dadweynaha caadiyana laga rabaa. waxaa laynaga wada rabaa waa maxay? ittaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. inaynu alle subxaanahu wa tacaala ka dhowrsanno oo aynan
geeridu inoo iman ilaa iyo inaynu muslim nahay mooyaane maadaama nabiga ilaahay ku yidhi wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin nabiguna calayhi salaatu wasalaam ducooyinka ugu badan ee uu ilaahay ku baryayey xadiidka tirmidi ibni maaja warinayaan sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamay waxa badnaa baa la yidhahdaa nebigu inuu ku ducaysto yaa muqalliba alquluubi habbit qalbii calaa diinik ilaaha aadanaha qalbigiisa gegediyow qalbigayga waxaad ku sugtaa diintaada saxaabi baa weydiiyo wuxuu yidhi yaa nabiy allahi aamanaa bik wabima ji'ta bih fahal takhaafu calayna oo waaba ku rumaynay wixii aad la timina waa rumaynay miyaad noo cabsanaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi nacam ina alquluuba bayna usbucayn aw bayna isbicayn aw bayna isbacayn taba waa la akhriyaaye ina alquluub qalbiyada bini aadamku waxay ku jiraan laba farood oo ilaahay farihiisa ka mid ah yuqallibuhaa kayfa yashaa ilaahay baa siduu doona u gagadiya maadaama gagadoonku uu suurtagal yahay nebi maxamed wuxuu baryayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in rabbi qumanida iyo toosnida iyo sugnaanta uu ku hayo waxaan rabnaa markaa dadaal badan inaynu ku bixinno waddada dhexe naf iyo shahawaadkeedii baa jira shayaaiin alinsi waljinni baa jira mahma adigu aad tala gaadho caqabadaa ka hortaagan cid kugu riixaysa jidka inaad ka weecato tiro badan baa jira oo ay ka mid tahay shahawaadka lagugu abuuray lagugu itixaamay shahawaatu nafs xoola jacayl baa kugu jira xidhiirka rag iyo dumarka dhex maraa qof walba ku jira baahiyo badan baad qabtaa waxaasoo dhammi waa wax kugu riixaya sidii waxaa loo heli lahaa inaad u xidhxidhato mar labaad waxaa jira shayaaiin aljinni walins dadka badh shaydaama ah oo ilaahay ku tilmaamay inay shayaadiin yihiin dee wixii waddada qaldan dadka ugu yeedhoo dhan baa shaydaan ah ama jin ha ahaado ama insi ha ahaadee marka shaydaannimadu waa dhaqan aadanuhuna leeyahay jinkuna leeyahay jinka inta dadka xumaha ugu yeedha waa shaydaamo aadanaha inta xumaha ugu yeedhana waa shaydaamo haddii bini aadamku uu adkaysan kari waayo xaqa weydaarto oo kuwa aad aqbasho isagoo ilaahay nabigiisii la hadlaya calayhi salaatu wasalaam buu wuxuu leeyahy wain kaaduu layaftinuunaka can aladii awxaynaa ilayka litaftarii calayna gayrah waida latakhaduuka khaliila walowlaa an habatnaaka laqad kidta tarkanuu ilayhim shayئa qaliila idan laadaqnaaka dicfa alxayaati wa dicfa almamaat ثم لا تجد لك علينا نصيرا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأمضى هرسيت كيديه قامية هيدي وأمضى عدي كده ينسي لكن إلهي وحلي وحد أدوات وحي أدواتي إنه كافتنا أيام وحي أنكو وحيوني وحكمنا سياد waxaan ahayn noogu been abuuratid baa ilaahay litaftarii calayna hayra waidan latakhaduuka khaliila haddaad tooda aqbali lahaydna waa ku soo dhowayn lahayen baa ilaahay leeyay saaxiibbay kaa dhigan lahayd aadamaha barh baa jira kugu dirqinayo kugu cadaadinaya xagga xumaha inaad u weecato ama bulshadu ha noqdo dhaqamiyo xeerar ay leedoo diinta khilaafsan ama ha noqoto dhan hunguriyo ay kaa soo maraan ama wuxuu doonaba ha noqdee dadka badh baa jira kugu cadaadinaya inaad u kacdo xagga ambadka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya markaa nebigiisii xataa inay isku dayayeen calayhi salaatu wasalaam inay dhankaa u kaxeeyaan ilaahayna wuxuu sheegay haddaad ka aqbasho latakhaduuka khaliila saaxiib bay kaa soo dhiganayaan markaa wararka hebel waa nin ragaa lagu leeyahy waa markaad jarka ka boodo waa lagu soo dhowaynayaa ilaahay baa markaa qur-aanka wuxuu leeyahy walowlaa an habatnaak haddaanan annagu ku sugi lahayn
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وحاد الدوات إن يرحقوا ضواعته هدي النبي محمد سيدا لو قال يوم هذا تقوم ملاينس قفي تشجو سوتشي ده أو حنا قرنايا صحيح غلط كوك لا عدين دينك هي الدين لا أنتوك لا عدين سونتشي ده موقف قاضن كريا أيوم بدبادية إلهي وحلي النبي سي محمد هداد ويعن لهي وإذن لا ذقناك ضعف الحياة ولا يسوء إضافية ضعف الحياة ضعف أصليا ولا بلاب هل كان لك واحد لو قلت هذا بيلين شدة الحياة نولش أديك جدا وكنا دسين لهن كديت كذا وحكار كلهاي قفك قابل مركز صادر كلهاي بيلهاي لي ضد وضد قلدان عررته وضد قلدان وحكي ما دام محي وهو حال ما خذين مركا إلهي النبي يسوع يقول لي هذا جدك قلدان مري لهاي أبا المركز كم بعض أركي لهاي وضعف الممات أي قبل الموت بيع علماء يدنا كنت الماما تا معنى هيد حويان لباطضوا آدم هي كتب أداوح السماية هذا مركا حقا وإدارتان مشاكل كذا الله كل ميسا عد كلو كو غرغرتنا هدي لهي امتحانك كل ربو ما جرتبا الله تلماميا قرانك إلهي وحنا قلت الماميا عربي مهما هي تقاني أحد جرتبا مفسرين تشيغان إسلام حنوسنيسي هورير مكادا هايد قالينك هوري حرق بيت تدعدا تدعى صومة تغانين حرق بيت صوهدا يو تدعدا قالك دمنا وي فرفرطاه marka waa qof madaxa looga jiro taas waxay keensatay inuu galina wax dhiso galina wax dumiyo bini aadamku waxa laga yaabaa inaad tiraahdo war qofkaasi waa waalay in badan oo dadka ka mid ah sida ku wada shaayidka soo galaysaa waad cibaadaysanaysaa waad wardiyaysaa hadhow baad noqonaysaa maqaaxida tagaysaa dadkaad xamanaysaa waxbaad akhrinaysaa intii yareeda soo shaqotaad rogaysaa haddana sayska rogada marka marna waad xagga adu socotaa saacada kalena haddana xagga kale adu socotaa waxa la inaga rabayna waxa idinaynu sugnaano khayrkeenu shaqaysano inaynan iska dayacin inaynan xan iyo damnuub iyo mashaakil kale ku dayacin وحوكاك يرى خيرك توشق يسطو سوغيت با إلهي وحلي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا هلا من نغنينا سيديتي حرقي تدعدي صوهضي دبو فرفرتين تيات كيسي كدب با إلهي لي تي حرقي انت تدعدو هذا ندبو فرفريسي تاسوك لها نغنينا با إلهي لي سبحانه وتعالى آدنه وحد عينه وناق هيه لكن مررك قارك عينه ضعيفه لبتنا استقامته كلنته والعياذ بالله يدك بربابي كبلن تبدين تبركه مركه هراء بني ادمكو حق حقوق موعده ان يربو وعده انقل ير 2 ديجري 1 ديجري بالغيابه لكن مدده هداي دheeraato israarkaagu iyo dambiku madaxadaygaagu haduu bato angalku sii dheeraanaya masaafadu markay korodho حقوات كدر كيسا إن بدن بدر كيسا ساوجد أي النبي وحط المامي عليه الصلاة والسلام إن لاك دون وقت أدواب رسالة تعظى مؤمنة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أبو نبوري قالك الدمار وقال ما كل عدونا متقالك الدبا قال وقالك هورانا السلامي محادتك السيدان ووضع الدين تودي مرة يوصل نغريا مرة يوضحيا وحنبي كنت المامية يبيع دينه بعرض من الدنيا أدون كيسي دين تسيبو حسيسنا يا إن يرى أدون كمده مدي السلطات يا مقع يا ماموس بوسيسنا يا مدي مال يا وحبوسيسنا يا واحد دون تبه النقطة من شهوات نفسك وحكم دون ما كان النبي كنت المامية قف إلى حد كبحة إلى جالسه وقالنا مسلم وقالنا قال نقولنا سببتنا أي تهي ونقول يا الدنيا قف كجيتي
إلهي القرآن كتساليال بدن بمركا ينوسين يا النوع والبكمدة تساليال كقرآن كبحية وحكمدة دول علماء هانشري وإلهي آيات كيسا يقاني أود بتنفت موبي وكدمنا كتاب حق دمك حوري سومالد واحد وذات كاهب الوقت كتاب حور يعني كتاب السودان كذا ما انتصه من كتاب لو يدير يما هي كتاب كمال بوس خليقه شغال قالوا وضع وقف وحقرنا يي لكن عن قصد وقوى عضي ما العد لا عرضي إلهي مركز سوحوا لي نبي عليه الصلاة والسلام واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين dadka waxaad ku dul akhridaa oo uga warantaa kii warkii baa ilaahay yiri waxba lama magac dhabin kii warkiisa dadka u sheeg kan muxuu ku caan baxay awalan ataynahu ayatina baa ilaahay yiri aayadka iyaga baa musiina waa mid wax garanayay aqoonyahana caalimaha laakiin fansalakh baa ilaahay yiri waa kasibmay سلخ وحلة الماما نفك هارج أمرك هرج اللي جسيبيه كأن ما كتاب ورسوتش وقوله يوسليس كسيبيه إلهي وقلت الماما فانسلخ وكسيبتي دينك آيات اللي سي وكسيبتي وفاتبعه الشيطان شيطان براعي شيطان براعي سجاب الله جيابه هدو عليم اللسان يحي سقاب الله يا بنو الشيطان كمعلن النقضة الشيطان كنت بقاله سقوا النقضة إمامك الشيطان وحكى برنايا صدق الله العظيم أما هنا يسكوا ديه هنا إسراعه فكان من الغاوين بإلهيلي انت اللنطيب كمدية غاوي وحلا إلى هذا وضد الرشد وحلا إلى هذا غاوي ضالك وحيد هذا أنت بدن وقف وحجرنا اللومي غاوي يسوي وحيد هذا وقف وحجرنا يلومي إلى أن النبي قال لبد بوكان فيه ما ضل صاحبكم وما غوى إذا بدنا ماها مدو كسو قوي عنا ينا ماها بالليل إلى وحكام كنت المامين وغاوين تكمدي كوا وحجرنا يلا كنا بضي حقدنا عمري وهدعي كرتا قفين ونغضه وهدعي كرتا إني بلشاد وبصاص كفر عضا يضا حقا قرن سيني دردرته بلشاد بدني جماعة بدني ضد بدني سوقت بها إلهي قرآن كوحوكت المام يرير بنو إسرائيل ضد كمدا أهل كتاب كي ضد كمدا فخلف من بعدهم خلف كو دي في عنابة إلهي كورما يدد ونكسنين إلهي إنجيل الهراء أبيال مقعية ما مصر هاي يكون أبتر سنيين لكن إلهي وحده فخلف من بعدهم خلف كوا دول با قضال مري دول كريم حيكو عام بحين أولا ورثوا الكتاب ودول دحلي كتابك انت بدن مبادئ دادك وصور دنتين نفي مال وصوهرا كما تقال دادك لكن دحلك كسوغا دي سيقبو كسوغا شبا انت بدن ضيع بلابا dhaqankeena waa aragteenoo odayga xoolaha ku dhidadaya shaqaystay aad buu ilaaliyaa inay ka dayacmin odaygu se markuu dhinto caruur iska barwaaqo kori markay xoolaha helaan inba meel bay ka tuuraan oo yinunbaa bay kaga soo hoydaan diinka ciddii u soo dhimatay u soo halgantay ee wixii loo soo maray ogeyd way xejisataa laakiin waxaa la tilmaamay qolo iyagu dhaxal ku heshay oo abayaashood iyo hooyooyinkood iyo dadkii ay ku abtirsanayeen oo muslimiina unbay la dhashay ayba ka dhaxlashay dabeetana islaamnimadu dhaxalkaasay ku soo gaadhay ilaahay wuxuu yidhi kuwii hore qaar baa ka gadaal maray kuwani waa qaar kitaabka dhaxal ku helay laakiin maxaa u caado ah يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه كون عدد وحويان بدبدك الدنيا هدي هلان واسك قاطعان
dabeetana waxay dhahay ilaahay waa ghafuurur raxiim ilaahay baanu dambi dhaaf ka sugaynaa wuxuu doonu samaynayaa waxaanu leeyahay ilaahay waa ghafuurur raxiim ilaahay baanu dambi dhaaf ugu taagay ma dambi dhaafkan uu sheegay ama toobad dhabbaayo bini aadamku waa dhacdaa inuu gafo laakiin uu soo noqdo oo sugmo ما صار نقش سقيتانا ما هبا إلى هيلي وياتهم عرض مثل يأخذوه مرة بعد هذا يسوى مرتين هلك يومك وضيها جد كان ساسو هيا با إلى هيلي ألم يؤخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون فلا تعقلون إلهي وحليم ينقوى بالله لك قادم إلهي سبحانه وتعالى قوى ميانو بلن كقادم ميثاق الكتاب ميان لك قادم إن أنا إلهي وحان حق هيك الشيء كتابك مياني درسين دارت آخرة أياه خير بدن للذين يتقون كوا إلهي كعب صدا ورمانك حقوا إذا كغبت با إلهي لها فلا تعقلون عقل ما نتشرين تبتنا كوا عكس هذا إلهي تلمام يكوي كتابك كل جنا والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كوا يجو كتابك هستا ووحك السوي ما أنسي دين إلهي كتابك أيها الأحبة مركب بني آدم هدي الزمن كله يراضه امتحانك يا رب بطال واحد مدين يدين تفراك قاضاه أما إن إسكيل هذان إلهي هو غفور رحيم تي واحد دونان صبيا إلهي هو المام يا مؤمنين تيهور رجعنا يكمل هاي نفي نفيس بالدين تودو بحيان كسقمان يقوى وضدا هي سجية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وحكم دبا إلهي لي مؤمنين ترك صدقوا ما عاهدوا الله عليه كرر الشيء وحي إلهي وبلن قاضين كسقنا ذي مبدأ أودا منهج إلهي أمدن نبا وقوي عني رقاسي وحكم إذا كوسا كل انتي يكوى وليتشتكي هيو سوغيا وح اسبدل لنا نكون عين اسبدل لها الصبينين مبادئ دودي الدين تودا كلاقا لسان أرواح دودي نفتودا ساد ردد ومصرين منا أقبل يان محي تنازل وحلا إلى هذا إن الدين تودا وحكت قال ما أقبل يان إلى أي كجيريون يان إلهي نوحت المام كوا سقمة حلق الشدة نين إلهي سوق الدورة أما نفتو مركا يبحي سهل نقطه توحيد كي كل من دوران أما ملائكة وحرقة حساب مكريا نكيرة حباشة ضدك وقلت ما ضاها نقطه مركا سؤاشة ويدين أيان إلهي وحلي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء إلهي واسقا قولك ثابت كابا إلهي كسقا نولشا الدون يا آخرة markay geeriyoonayaan iyo noloshooda adduunba iyo aakhira markay tagaane xabaasha ku jiraanba ilaahay kuwaasi waa sugaa ayuha alahibba marka meelaha aynu u baahanay inaynu toosnaano ama diinta ku sugnaana waa dhul tiro badan baabu shubahaat buu ka iman karaa waa in diinta qofka laga shaki geliyo casriganna aad u tiro badan waayo waa casri ay fududaatay xumaha in si fudud laysu gaarsiin karo waa inagan mobil joobka ku wada sidana ee dunida dabadeeda wixii bala ka dhacda laynoo soo warinayo ee lagu akhrinayo maanta waxaaba fududaatay dad raba xumaha inay ku caanbaxaan oo raba dad badan inuu galo in lacag baa lagu helayahay taasi waxay keensatay markaa shubahaadka la akhrinayo inay tiro badato waagii hore dadka waxa wax u sheegi jiray laba qolo dawladda oo idaacad ama TV lahayd oo warkeedu censorship soo maro
ama waxaan la qoro madbacada soo maro censorship soo mara iyo sheekh memberka nabi maxamed iska taaga calayhi salaatu wasalaam oo isna diinta ilaalinayo diin ku sugan oo censorship kitaab iyo sunna mara isna هذا هو منبر وما لا منبر له بين كما قال محل هذا الجزيري هذا نولي بوا هذا كرا نولي بنا ورهم كرا نولي بنا وشيء كرا سنسر شبنا ما تشرو عد ولي بوا وحبي شيء كرتا حتى سومالي دكوا دوالا بيدي جيستان أروالا نطير بدن بابا غير صهرنا ما دام الشهوات كأي بدين شبهات كرة ترى بدين فتن كاتر بدن مركز سجنانتو إن الله سجن مويار ويرانسا تكون القمان هذان وحسهلا معها إن القمان هذان ما أنت وحي وباهنتي مجاهدة بيوباهنتي هديت شهوة الجنس هديت شهوة المال هديت شهوة الجاه والسلطان حرصك يا طمع عاترة بدن له dadku maanta aad baa fitanku u badan yihiin xagga diinta fitan baa ka socda oo ama ha noqdo dulmi iyo duqaad iyo dadka laaya oo xidha oo droon ku toogta oo nafta isugu keena oo haddaad dhowr salaadood tukata ku odhanaya terrorist baa tahay dunida maanta taasaa caan ka ah dadkii miidiyaha waaweyn ee dunida la dhagaysta lahaa summad waxay ka dhigeen qof kasta oo muslima inuu shaabadaas iskaga shaabadaysay marka kollayba marka hore dambiilata inaad sacdaysa mooyaane halkay qaacidadu ahayd dadku inaanu dambiilayaan ahayn ilaa iyo dambi lagu suga mooyaane waa cagsiga hadda baradaada shahaadata dambiilaa tahay inaad sacdayso inaad dambi gelin mooyaane marka fitnadu waa tiro badantay quraanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa dad badan oo diintoodii lagu itixaamay fi suurati al-kahf innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa ilaahay ku tilmaamaya godka galay min al-qusur ila al-kuhuf bay qaateen waxay dhahdaan abnaa al-muluk bay haayeen caruurtii boqoradu dhashay laakiin diin la'aan baa lagu qasbay dabeetana waxay doorteen inay iska hijroodaan xaggay u hijroodeen meel kale markay waayeen god bay galeen laakiin godkaasa ilaahay ku badbaadiyo 300 sanadood bay god iska jiifeen oo ilaahay arsaaqayo ay jiifeen dabeetana la soo kaakiciyay innahum fityatun aamanu bi rabbihim wa zidnahum huda dhalin bay haayeen baa ilaahay leeyahay dhalin yaro ilaahay rumeeyay allana hanuun u kordhiyay aayaadkaasi marka ilaahay ka warramo cismada la raacinaya waxa weeyaan fitnatu diin qofka hadday ku dhacdo as-suhba as-saaliha iyo aakhira xasuusteeda labadaas ay aayaadku xagga dambe ka tilmaamayaan waxa kale quraanku inooga warramaya qaar iyaga laba laayo u gubtay asxaabi al-ukhdud suurat al-buruj kuwa ilaahay kaga warramayo magaalo dhan oo inta godod loo qoday dhammaanteed dab lagu guray baa ilaahay quraanka kaga warramaya waa magaalo iska dhan oo nin leeyahay ana rabbiyay rumeeya oo yidhi war anagu ilaahay baanu rumaynay dabeetana iyagoo arkaya dab lagu guray oo weliba dabka markii lagu guranayay la daawanayay iyana waa tusaale kale oo sheegaya dadku diintooda siday ugu dhegan yihiin oo ilaahay quraanka inoo tilmaamaya xataa haddii lagu gubayo inaad diintaada haysato haddii dalkaaga lagaa saaro hijrooto inaad diintaada haysato سأوجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام حلي جيم كله شوقي يا خباب بن أرد صحابي قال له رنشري حديث البخاري وحليه النبي قال موسى اشتكوني يسقوا هرقودا كعبة تشيفة أيام نوني مبوي متوسط ببردة مركزانو ليلا الرسول كيسيو ما دي له إنه بريدت نبتنا الله نقول فرق هذا هذه الله يقول نو يديس يجرجر وحنا بقول يردك كيدين كور رأيمت كم إذا أنت الله قبضه قد الله قضى مشان هالكلا جساره أي اللي بالله كلا شيء يشري
arrinkaasina diintooda kamay celin jirin ama gafeedh bira fargeeto bira inta la soo qaado ayaa lafta iyo hilibka lagu kala saari jiray iyagoo nool famaa yasudduhu dalika can diini waxaasina diintooda kamay celin jirin buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam muxuu taariikhda ugaga warramayaa nebigu waxaa la rabaa inay adkaystaan inay habaat laga helayo sugnaan inaan diintoodu waan baahday looma bahala cunay soomaalidu ku maahmaahi jirta waa lay dhibay diintaada loogama tago waana la maagay diinta loogama baxo saa awgeed ayaa waxaynu u baahannahay diinteenna inaynu ku dheganaano fitanka ilaahay uu inooga warramay waxaa ka mid a matala suuratulkahf jimco kasta waynu akhrinaa dadku inay sunnato maalinta jimcada la akhriyo ayuu yaqaanaa maxaa loo akhrinayaa waxay culammadu yidhahdaan ama xadiista ku soo arooray akbar dajaal fi lcaalam soo bixi doona dajaal cawar ninka la yidhaahdo suuradda tani inay tahay waxyaabaa layskaga dafciya layskaga celiyo nebiguna wuxuu odhan jiray fitno ninkaa fitnadiisa ka weyni dunida soo mari mayso ee addoommaha allow sugma suuraddaa inaad akhrisataana waxay kaaga tahay waxyaabaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka kaga celiya dadka badh baaba iyagu nicmada ku luma kuwaasi waa shiddadii sugma la leeyahy qur-aanku wuxuu inooga warramayaa qaar iska foqoro ahaayoo lahaa mar uun ilaahay hadduu maali siiyo inta loo dhiibay dabeetana bidhaantiisaba dib loo waayey markuu maalka helay kibir iyo xumayo inuu xuquuqdii ilaahay bixin waayo ka sii qaaday waminhum man caahada allaha lain aataana min fadlih lanasadaqanna walanakuunanna min alsaalixiin waxaa ka mida baa la tilmaamay kuwa xunxun ee munaafiqiintii ahaa qaar le ilaahay hadduu fadligiisa wax naga siiyo waa sadaqadaysan lahayn oo dadka saalixiintaa baanu ka mid noqon lahayn markii ilaahay siiyeyna bukhli lagu itixaamay iyo inay diintaba ka jeestaan idan shiddaduna dadka badh waa lumisaa badhna waa sugmaan nicmaduna dadka badh bay lumisaa nicmada lafteedu iyo barwaaqada iyo badhaadhuhu dadka badh buu lumiyaa oo diinxumo ka qaada dadka badhna waa sugmaa sideedaba shahwaatu nafsigu waxay ka mid yihiin waxa laynagu itixaamay waayo bini aadamku xoolaha waa jecelyi ilaahay baana inugu abuuray inaynu xoola jeclaanno wainahu lixubu lkhayri lashadiid watuxibuuna almaala xuban jama wauxdirat ilanfusu shux nafta bini aadamka waa iskaga xaadirsan tahay xoola jacaylka iyo ku dhaafinta laakiin waxaa layna baray sida bakhaylnimada laysaga daayay diintu inoogu yeedhay ee wax loola baxo saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa markii la yidhi wauxdirat ilanfusu shuxa waman yuuqa shuxa nafsihi baa ilaah yidhi qofkii alla ka dhowro bakhaylnimada naftiisa taa macnaheed waxa weeyaan hadday maal tahayna maftuun baa too waad imtixaamantay hadday shiddo iyo dhib tahayna waad imtixaamantay haddaad jaah iyo madaxnimo iyo maamuus haysatana waad imtixaamantay laakiin su-aashu waxa weeyaan yaa qumanaan kara yaase toosnaan kara toosnida iyo sugnaanshiyaha dadka inteeba heli karta dad badan oo markaynu dooranayno af macaan inoo sheega oo yidhaahda waxaan baan qabanaya waxaan qabaa markuu siyaasadda gale u meel gaadha baynu dib u weynaa waa imtixaan kale waa jiraa dad sugmi kara oo dee qur-aanka iyo axaadiistuba dad badanoo sugmay bay inooga warramayaan dad badan markii hore masaajidda aynala joogano dad khayr qabay ahaayeen markay maal heleen baaba la waayey oy rabshadu ka shaqeeyeen dad badan marka fitanku dhacay iyo dagaalada iyo mashaakilku yimaado ninkii shalay tasaful awalka ahaa oo dhig bini aadam u haliilayo qori la ordayuunbaad arki oo le reer hebel haddaynan meel ku ogaanin ama dhig muslim dafirayo le wax aanu idinka gar leenay ma jiro
oo dadka madaxa isugu warsadiisa fulawalka ah xagee waxaagii mareen cibaadadaadii xagee ka baxday yacni reernimada markii la taabtay ayuu kitaab allaba ilaabay meel iska dhigay reerka inuu wax ka dhiciyuunbuu u xidhxidha idan waxoo dhammi waa imtixaan dunidu laakiin waxa isweydiinta leh yaa sugnaanaya yaa diinta ku sugnaanaya oo xejisanaya waxaynu u baahannahay markaa soo koobayaay inaynu cabsida ilaahay laasimno ilaahay waa kaayna leh ilaahay ka cabsada oo walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun waxaa laga yaabaa khudbad kastoo jimca in laydinku akhriyo yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun maalin kasta waxaa laynoo xasuusinayaa khudbad jimca ah waxaa layna leeyahy war hooy adduun waa dhib badan yahe sugnaada maalin kasta waxaa laynoo xasuusinayaa waxaa la ogaya nafta bini aadamka iyo labacdeeda qumanidu inay ku adag tahay oo inuu sugnaadaa inaanay fududayn ilaahayna qur-aanka dhul badan buu inoogu tilmaamayaa dad imtixaanaadka inta la geliyey ku saaqiday hadday siyaasad tahay boqorro gaalnimo doortay baa ilaahay ka warramayaa fircoon ka mid yahay oo namruud ka mid yahay oo dad xun boqorro markay xaqa arkaan hanuunayna waa laga warramayaa gabadhii saba ka talinaysay iyo kuwo markay qabteen cadaalad ku maamulay baa laga warramayaa nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan iyo taaluut iyo wixii la mida qaar maal helay oo lumay baa ilaahay ka warramaya fircoonka lahaa laysa lii mulku misra iyo qaaruun iyo dad la nooca kuwo xoole iyo wax helay baa laga warramaya oo dariiqa saxa ah ku sugay sida nebi sulaymaan iyo ilaahay maal iyo boqortooyaba isugu daray kuwo nooc waloo tusaale ah baa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waa inoogu tilmaamay kuwa diintoodii lagu itixaamay baa laga warramayaa ku guulaystay kuwo diinta lagu itixaamayo saaqadayna waa laga warramayaa marka waxaynu leenahay ku soo koobaynaa adduunku waa imtixaan kuwa shahwaad lagu itixaamay oo guulaystay sida nebi yuusuf iyo maryama marka waxaan ku soo gebagabaynayaa ku koobayaa nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam tucradu اlfitanu cala alquluubi kalxasiiri cuudan cuuda quluubta in imtixaanaadka loo soo bandhigo iyadoo tiro badan qalbi kasta oo imtixaankaasi guulaysan waayaana dhibic madow in lagu dhigayo kii ku guulaystana dhibic cad in lagu dhigayo dadkuna inuu u qaybsami doono kuwa markaa qalbigu madoobaado oo aan macruufka iyo samuhuba gelin iyo kuwa qalbigooda uu iftiimayo oo haddiiba wax ka dhacaan istikfaarta boobayo oo markiiba ilaahay u soo noqonayo toobad keenaya labadaa nooc bay dadku u qaybsami doonaan aakhirka marka waxaan ku soo goobayaa ducada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayuuna barayo allahuma ya muqalliba alquluubi ثبت قلوبنا على دينك أما اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك إنه بريدة إلهي بدينه ددال كنا بدينه ما لها خير كالوها ينا لازمنه قرآن كآخر سكيسة بدينه أسباب بدن باتشرو سويتان ككنتا هات السكجر سين من نجود هم وحن لاناي دول كعلم جاي الدين جاي الذكر جاي عبادة الوها يو هكفوغاني هديك هلا yaygu wuxuu cunaa buu nebigu tilmaamay adhiga ticda ugu baxda waraabuu xoolaa waa didiyaayo neefka dhinac ugu dhaqaaqa kaas buu bahalku eriyadaa marka haddaad dhulka khayrka ka durugtana waad lumi haddaad dhulka khayrka ku nafta ku xejisana waa lagu xasuusin oo waa lagu waanin oo waad wardiyo oo ilaahay baad ka cabsan oo qur-aan baad dhigan oo diintaadaa kori oo aadna sugitaankaaga badan doona وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين